Asalaamu calaykum saaxiibayaal, waxaad ku soo dhawaataan Saciid Madaali Sports. Waxaynu eegi doonaa kulamada weyn ee u dhexeeya dagaalka top 4 maanta Manchester United iyo Aston Villa, Liverpool iyo sidoo kale waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta ee Tottenham. Haddii aan ku bilaabno Manchester United iyo Aston Villa, waxay ka qoreen warbaahinada ugu weyn ayaa sheegay in kulankan yahay mid go'aamin kara top 4 Premier League. Warbaahinta Ingiriiska ayaa sheegtay in Manchester United ay ku jirto kaalinta saddexaad sida markaana ay rabto inay sii adkaysato booskooda Champions League sanadka dambe. Tababaraha ku-meel gaarka ee Mikel Carrick ayaa doonaya inuu dib u soo celiyo guulaha kadib guuldaradii kasoo gaartay Newcastle, halka Aston Villa ay hogaaminayo Unai Emery. Waxa uuna sidoo kale uu doonayaa inuu top 4 sidoo kale uu ka qayb noqdo kadib markii kulamadii ugu dambeeyay Aston Villa ay aad u liidatay. Xiddigaha la filayay inay wacdariyaan ama ay warbaahinta waxay ka qortay waxaa ka mid ah Bruno Fernandes oo leh hal-abuur Manchester United ah, halka ninka lagu magacaabo Ole Watkins uu ah lambarka 9aad ee kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Aston Villa. Haddii aan fiirino saaxiibayaal, falanqaynta warbaahinta ay sameeyeen sida ay qoreen Sky Sports iyo wargeyso kale, United waxay ku fiican tahay marka la joogo Old Trafford. Villa waxay dib u qabtaa difaaca safarada ah. Kulanka waxa uu noqon karaa mid guulo badan la iska dhaliya. Warbaahinada qaarkood ayaa waxay sheegayaan in Manchester United ay ku adkaan karto 2-1. Haddii aan fiirino kulanka labaad ee u dhexeeya kooxaha Liverpool iyo Tottenham, waxay ka qoreen warbaahinta iyo waxa uu ka yiri wariyaha caanka Fabrizio Romano. Sidoo kale kulankan waa mid laba dhinac u dhici kara. Tottenham waxay rabtaa inay kasoo dhaqaaqdo dhanka dhicitaanka, halka Liverpoolna ay dooneyso inay top 4 ay sii gasho. Tottenham waxay lumisay dhowr kulan oo isxiga iyadoo 5 kulan ee ugu dambeysay aysan wax guul ah gaarin. Tababaraha cusub ee Igor Tudor lagu magacaabo ayaa cadaadis weyn u saaran yahay. Xitaa waxaa la sheegay in haddii ay Liverpool badiso, xitaa tababaraha kooxda kubadda cagta Tottenham uu cadaadis weyn saaran yahay kadib markii UEFA Champions League laga soo adkaaday 5 kulan ugu dambeysay. Premier League uusan wax guul ah keenin. Xiddigaha la filayay inay wacdariyaan waxaa ka mid ah Mohamed Salah iyo sidoo kale Dominic Solanke oo ah khataraha ugu weyn ee wajihi karta caawa kooxda kubadda cagta Tottenham. Haddii aan fiirino taariikhda kulamadan, Liverpool waxay badisay 4 kulan, afar ka mid ah 5 kulan ee ugu dambeysay Tottenham ay u baxeen. Spurs waxay haysataa 5 guuldarro oo xiriir ah oo kasoo gaartay kooxda kubadda ee 5 kulan ee ugu dambeysay ee Premier League. Haddii aan fiirino waxa uu sheegay Fabrizio Romano ayaa wuxuu maanta wararkiisa ugu weyn diiradda ku saarayaa dagaalka top 4 ee Premier League oo aad u kulul. Cadaadiska saaran Tottenham iyo Manchester United oo doonaysa inay sii xaqiijiso booska Champions League ee sanadka dambe. Haddii aan fiirino, Romano waxa uu tilmaamay in Manchester United iyo Aston Villa kulankan uu muhiimsan yahay top 4. Liverpool iyo Tottenham Liverpool ayaa fursad weyn u leeyahay inay guuleysato maadaama ay joogto garoonkooda Anfield. Saaxiibayaal, haddii aan fiirino, Man United iyo Aston Villa ayaa ugu waaweyn maanta. Liverpool iyo Tottenham way jiraan. Saaxiibayaal, ilowina subscribe saarto, like na saarto fiidiyowga. Waa mahadsantahay saaxiib.